Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaasha ku xiran channelkayga Tiktok Sajiya kusoo dhawaada meel walba aad joogtaan. Mawduucayga maanta wuxuu ku saabsan yahay 10 faa'iido oo laga helo caanaha iyo malabka marka la isku daro. Bismillaahi kariim, haddii aan guda galno muuqaalkeena maanta oo ah caanaha iyo malabka marka la isku daro. Faa'iidooyinka laga helo caanaha dabiiciga ah waxaa ka buuxa nafaqooyin kala duwan oo aas-aas u ah caafimaadka. Calcium-ta iyo fitamiino ku jira caanaha waxay kobciyaan caafimaadka lafaha wayna adkeeyaan. Caanaha qaar sida kuwa geela wuxuu ku noolaan karaa qofka ama ay u sii karaan beddelka cunada iyo cabitaanka. Wixii nafaqo jirka uu u baahan yahay waxay u gelin karaan beddelka cunada iyo cabitaanka. Wixii nafaqo oo jirka u baahnaa waa laga helayaa oo waad kaga maarmi kartaa cuntooyinka kale haddii aadan haysanin. Geelayda badanaa inta ay la joogaan geelasha waxa ay ku nool yihiin caanihiisa. Malabku waxa uu ka mid yahay cuntooyinka dabiiciga ah ee ugu faa'iidada badan caafimaad ahaan. Caafimaadka qofka sababtuna waa xaddiga aadka u badan ee fitamiinada, macdanaha kala duwan ay ku jiraan malabka iyo sida uu maadooyinka awoodda badan oo lidka ku ah bakteeriyada maridka. Dhakhaatiirtu waxay sheegeen malabka ay ku yar yihiin kalooriska isla markaana aynu wax dufan ah lahayn. Sidaa awgeed waxa ay ku taliyaan in qofku uu caadeysto in maalin kasta uu cuno malab ama malqacad malab ah. Haddaba faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo cabista caanaha iyo malabka waxaa ka mid ah: 1. Awoodda iyo firfircoonida ayuu dib ugu soo celiyaa. Haddaba cabista koob caano oo lagu daray khaldo ama malqacad oo malab ah subaxdii waxaad ka helaysaa awood iyo firfircooni. Carbohydrateska ku jira malabka waxay kor u qaadayaan tamarta. Caanaha waxaa laga helaa borotiin kaas oo kordhiya awoodda qofka. 2. Wuxuu sare u qaadaa ama uu hagaajiyaa caafimaadka dheefshiidka. Cabitaanka isku darka ah malabka iyo caanaha wuxuu u roon yahay caafimaadka dheefshiidka. Sidoo kale cabitaankan waxa uu yareeyaa calool istaagga iyo dibiryada. 3. Caafimaadka lafaha. Caanuhu waa isha ugu fiican ee laga helo macdanta calcium-ta. Malabka waxa uu caawiyaa in dhiiggu uu calcium-ta ka nuugo caanaha kadibna u gudbiyo lafaha. Waana sababta ay muhiim u tahay cabista caanaha lagu daray malabka. 4. Calool istaag. Caanaha waxaa ku jira nafaqo dhammaystiran iyo maadooyin cunto oo jirka ka caawiya in uu si habsami ah u dhammaystirmo hawshiisa dheefshiidka. Sidaa awgeed waxa ay qofka ka caawinaysaa in aysan calooshu istaagin. Caano diirran oo lagu daray malab ka hor inta aan la seexan waxay daawo u tahay calool istaagga. 6. Ka hortagga calaamadaha duqnimada. Maadooyinka sunta saarista ee laga helo caanaha iyo malabka waxay la dagaalamaan ee afka qalaad lagu yiraahdo free radicals oo sabab dhaqso u duugoobista u ah. 8. Qufaca. Caanaha iyo malabka waxa ay la dagaalamaan bakteeriyada waxa ayna daaweeyaan bararka dhuunta iyo qufaca. Malabku wuxuu u fiican yahay xabeebta. Haddii aad leedahay riix-riixyo waa in aad ugu wanaagsanaada ama si wanaagsan aad u qaadataa malabka. 9. Stresska. Caanaha iyo malabka oo la isku daro waxa ay hoos u dhigaan heerka hormoonka loo yaqaano cortisol oo ah hormoonka stresska qaabilsan. Cabitaanka waxa uu dejiyaa neerfayaasha maskaxda waxaana uu wanaajiyaa dareenka qofka. 9. Xasuusta iyo feejignaanta ayuu markaasi. Malabku waxa uu wanaajiyaa shaqada maskaxda waxa uu yareeyaa stresska waxa uu kor u qaadaa xasuusta iyo awoodda garashada. Caanaha iyo malabka la isku daro waxay wanaajiyaan xasuusta iyo feejignaanta
qofka. 10 infekshanka ku dhaca caloosha. Maadooyinka lidka ku ah bakteeriyada ee ku jira malabka waxa ay baabi'iyaan bakteeriyada keenta infekshanka. Caanaha waxaa ku jira dheecaan burburiyaal u roon dheefshiidka taas oo hagaajisa caafimaadka caloosha. 11 hurdo la'aanta. Macaanka malabka ku jira waxa uu kordhiyaa maadada insulinta ee jirku u baahan yahay. Waxa kale uu kordhiyaa hormoonada qofka oo caawiya hurdada wanaagsan. Caanuhu waxay caawiyaan neerfayaasha qofku ay degaan hurdo la'aanta ay ka hortagaan maadaama ay hodan ku yihiin aasiidhada amino acidyada lagu magacaabo gaar ahaan kuwa qofka xasilooni badan ku abuura. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani. Fadlan muuqaalka la garay una sii sheer garay asxaabtaada qaar ka mid ah. Mahadsanid.